بسم الله الرحمن الرحيم آساسka madasha badbaado qaran ee Soomaaliyeed Muqdisho 18 Maarso 2021 war murtiyeed waxaa magaalada Muqdisho 14 ilaa 18 Maarso 2021 kulamo wada tashi oo xiriir ah ku yeeshay madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland golaha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasadda Somaliland kulamada ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed amni iyo qabsoomid la'aanta doorashada dalka iyo waliba marxaladda cusub ee uu galay dalka Soomaaliya kadib markii uu dhamaaday muddaxileedkii golayaasha baarlamaanka federaalka 26 Diseembar 2021 iyo kan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ku ekaa 7 Febraayo 2021 sida ku cad dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya qodobadiisa 6aad iyo 19aad isla mar ahaantaasna lagu guuldaraystay in la qabto doorashooyinkii dalka si waafaqsan heshiiskii Sebtembar 17 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho madaxda kulamada yeeshay oo intii muddo ahaydba waqti badan geliyay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wada ogol ah waxa uu cadaatay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caqabad ku yahay inay dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ah si nabad ah ku dhacda kadib markii si joogto ah uu carqaladeeyay heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho isagoo jabiyay habraacyadii magacaabista guddiga maamulka doorashada gobolka Gadana ka abuuray xasarad colaadeed sidoo kalena ku takrifalay magacaabista guddiga maamulka doorashada kuraasta Somaliland 2 fashiliyay shirkii Dhuusamareeb 4 isagoo ka soo baxay shirka oo socda 5 Febraayo 2021 si uu uga hordhaco inaan heshiis laga gaarin caqabadaha fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 3 ishortaagay in shirar wada tashi ay madaxda wada tashiga qaranka isugu yimaadaan magaalada Muqdisho asagoo uga gol leh inaan wada tashi buuxa oo wada ogol ah laga gaarin arrimaha doorashada Soomaaliya 4 amray in 19 Febraayo 2021 la weeraro Hotel Maida oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii xilka uga horeeyay iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka iyo in la rasaaseeyo shacab iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta midowga murashaxiinta oo dhigayay dibadbax nabadeed taas oo ay ka dhalatay dhimasho dhaawac iyo burbur hanti iyo waliba caburin qabashada mudaharaad nabadeed oo ka dhici lahaa daljirka Dahsoon 19 Febraayo 2021 5 u adeegsaday ciidanka xoogga dalka dana gaar ah oo ku carqaladeynaya qabsoomida doorasho si nabad ah oo wada ogol ah uga qabsoonta dalka 6 ku tuntay dastuurka ku-meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan qodobada 20aad 9aad 91aad iyo 6aad haddaba markii ay cadaatay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday uu dalka geliyay firaaq dastuuri ah iyo faragelin hanaanka federaalka dalka uuna horseeday xasilooni darro siyaasadeed mid bulsho iyo mid amni halisna ay ku jirto midnimada iyo wada jirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalkuna uu galay marxalad hubanti la'aan hogaamineed kadib markii uu dhamaaday muddaxileedkii madaxweynaha dowladda federaalka 7 Febraayo 2021 waxaa kulamada madaxda lagu go'aamiyay in la dhiso madasha badbaado qaran oo ay xubno ka yihiin dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland golaha midowga murashaxiinta iyo golaha siyaasadda Somaliland ujeedooyinka madasha 1 hubinta in dalka ay ka qabsoonto doorasho wada ogol ah 2 badbaadinta qarannimada midnimada wada jirka iyo horumarka laga gaaray nabadda iyo geedi socodka dhismaha dowladnimada dalka 3 ilaalinta xasiloonida siyaasadeed iyo amniga dalka guud ahaan iyo amniga qabsoomida doorashada gaar ahaan xubnaha madasha badbaado qaran
kow golaha siyaasadda somalilan labo midowda murashaxiinta saddex dowladda jubbaland ee xubinta ka ah dowladda federaalka afar dowladda puntland ee xubinta ka ah dowladda federaalka waajibaadka shaqo ee madasha badbaado qaran kow waa howlgalka qabsoomidda doorasho wada ogol ah oo si nabad ah ku dhacda labo waa howlgalka dib u heshiisiin iyo ka hortag wax kasta oo xasilooni darro abuuri kara saddex waa howlgalka qodobka labaad waa howlgalka dib u heshiisiin iyo ka hortag wax kasta oo xasilooni darro abuuri kara saddex ka hortagga in dalku galo fashil siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhac geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya guddoonka madasha badbaado qaran xubnaha madasha badbaado qaran waxay si joogto ah uga wada shaqaynayaan qodobada ku xusan ujeedooyinka madasha ee qabsoomidda doorashada dalka ka hortagga hubanti-la-aanta hogaamineed iyo ilaalinta amniga iyo xasiloonida guud sidoo kale madasha badbaado qaran waxay yeelanaysaa golaha hogaaminta oo ka kooban kow guddoomiyaha golaha siyaasadda somalilan mudane cabdi xaashi cabdulaahi labo guddoomiyaha golaha midowda murashaxiinta mudane madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed saddex madaxweynaha jubbaland mudane axmed moxamed islaan afar madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi deni golaha hogaaminta madasha badbaado qaran waxay guddoomiye u doorteen mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyihii hore aqalka sare wabilaahi tawfiiq